wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac oo soo wakiishay gudoomiyaha gobolka Xaysimo Cabdirashiid Axmed Maxamed ayaa munaasabad casho sharaf ah u sameeyay xulalka gobolada Sool iyo Xaysimo madashan casho sharafta ah ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabada gobolada Sool Xaysimo iyo Togdheer waxaana sidoo kale qayb ka ah casho sharaftani hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo marti sharaf kale mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadani ayaa ciyaartooyda xulka gobolka Xaysimo ku amaanay guulaha ay ka soo hooyeen ciyaaraha ka socda gobolka Togdheer ay nasiib u heleen inay markii ugu horeysay ka qayb galaan waxaana mas'uuliyiintan iyo ciyaartooydu aad ugu mahad celiyeen wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland oo casho sharaftan u sameeyay xulalka gobolada Sool iyo Xaysimo waxaan u jeedinay wasiirka biyaha Baasha Cali Jaamac oo isagu xafladan bixiyay qarashka aawa oo yiri waxaan rabaa labada gobol dhalinyarada ka socota iyo madaxdeeda inay aawa aan jeclaa inaad la joogo aan jeclaa wiil laakiin salaan iga gaarsiiyay dhamaantoodba kooxdan ka socotay gobolka Xaysimo waxaan idin rajaynayaa Xaysimo ee shalayto ciyaarta quruxda badan soo bandhigay ee aan aad u jeclaystay ciyaarkoodii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan filayaa sidii idinka muuqatay haddaa u ciyaartaan ina burca kaga bixi doontaan raqam awla kaga bixi doontaan waayo waxa ku jirtaan maanta labada gobol ee qura ee dhibca ka haysta gobolkan Togdheer ciyaarta ka socota aad iyo aad baanu idiin soo dhaweynaynaa goboladan ee ciyaartooyda halkan fadhiya iyo mas'uuliyiintoodu halkan ay joogaan waa idin soo dhaweynaynaa aad u firfircoon isla haysta aad is odhanayso mudday soo ciyaarayeen ay ahaayeen nimanka halka kala dheeray runtii aad iyo aad baan idinku hambalyeeynaa rag lama yaraysto hays dhiganina oo hays odhanina waa jiidhan kuwii horeysay waa jiiri kartaan kuwa kale ciyaarta labilaaba kordhiya waxaan idin rajaynayaa in aad noqotaan waa qolada aan arkay ciyaartooda oo runtii aad ay muxuu ahaa cajab gelisay waxaan idin rajaynayaa guul si kastaba ha ahaatee xulka gobolka Xaysimo ayaa waxay markii ugu horeysay ka qayb galeen koobka gobolada Soomaaliland iyadoo ay guulo fiican ka soo hooyeen taasina waxay farxad gelisay shacabka iyo taageerayaasha xulka gobolka Xaysimo Maxamed Faarax Bile telefishinka caalamiga Kalsan magaalada Burco.